erey laba ayaan ka oranayaa hadalladan ay hawada isu marinayaan baarlamaanku golaha guurtida iyo golaha wakiiladu 1960kii markii israacu dhacay 1 Juulaay labadii baarlamaan meel la isugu geeyay ayaa wuxuu dhaqanku ahaa in madaxweynaha baarlamaanka laga doorto dadweynuhu may dooran jirin golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha meesha laga dooran jiro waxba iyaga soo ahaa barigaasa timacada ka gabiyo markaas wuxuu yiri muskii baarlamaanada markaan meel isugu geynay madaxweynayaal markii minister loo doortay nimankii melmelay waa kuwii maalay kaligood muraadkoodu nimanku ahaa moorkiya daarta nimankii mugooduba ahaa maalin la casuumo marnaba yeedinaan dhicin kuwii mala ku soo goostay manaxaanadii baan arladan meeris noo tolin maanta oo golaha guurtidu fadhiyo 22 sanadood golaha wakiiladuna ay fadhiyaan 13 sanadood ayaa waxay ka hadlayaan sidii loogu sameyn lahaa xeeroosaadka ay ku wada shaqeyn lahaayeen iyo marmarbaad waxay soonaysaa maamaade ahayd dhowdhowdu caduur uma dhicin malaa odayga waa lagula dhacay halkan ku fiicnaan lahayd qaran jabnimo ayaa ku jirta waxyaabaha ay ugu jecel lahay waxa kamid ah ee ay dadkoo dhami ku hamiyayaan اعترافك somaliland in somaliland la aqoonsado waa waxa ugu weyn ay dadku ilaahay ka bariyaan ay habeeniyo maalin ku ducaystaan marka xeer dejinteeni aanay wax xaq dhowr iyo ixtiraam u haynin dastuurkii ummadan lahayd ee ay ku dhaarteen ee ay ku jiraan ee ay ku joogaan markaana xaq dhowreyn waxyaabaha la yaab kale dadku isweydiinayaan waxa weeye sidee xeerarka caalamiga oo xaq dhowrayaan xaq dhowr ugu yeelanayaan way hadlayaan oo way qeelinayaan qodobka dastuurka la jibiyay qodobkaas la jibiyay kaas la jibiyay qodobkan oranaya muddada xilhaynta ee xubinta golaha wakiilada ama guurtidu waa 5 sanadood markuu 22 gaadho miyaanu kaas jabin waxaad arkaysaa iyagoo hadlayo oo leh wixii dhaqanka iyo diinta iyo waxaankaas wax xaq u leh golaha guurtida dastuurka sidaa dhigaya soo kan dhigaya ma aha 5 sanadood bay meesha joogi karaan maanta waxaan marxaati ka nahay golihii wakiilada oo wiigiiba 4 xeer soo saarayo madaxweynuhu saxeexayo waxayrkii kufsiga waa kii kalluumaysiga waa kii deegaanka waa kii waxbarashada waa kii shaqaaleynta cid aliyaal cid hadal haysa kii doorashadu ma jirto golaha guurtida lagu ma hadlayo golaha wakiiladana lagu ma hadlayo waxaan hadal ku soo ururinayaa ibraahim sheekh salabaan ibraahim gallen xariista janna ilaahay ka waraabiye xaq dirirkii aan xuduud lahayn ayaa isaguna maansan la yiraahdo tuun reeb oo kaga jawaabayay maansan loo jiray dhuux tagoogo oo tiriyay naxariista janna allah si Cabdulqaadir xirsi yamyam 89kii baa wuxuu ku yiri tuugu isqariyaa halka uu ka xado tulutahan buu ka guuraa toddobaadkan xaajo mitrix taayimid waxaanu leenahay toddobaadkan qaar trix taayimid